والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين. فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين. فضاء فسيح ويدعوك دوما تفكر تجد فيه نورا مبين. هو الله سبحانه من إله وكم أبدع الآية للعالمين. فضاء فسيح ويدعوك دوما تفكر تجد فيه نورا مبين. هو الله سبحانه من إله وكم أبدع الآية للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal ku soo dhowaada barnaamij taxane ah oo idinla wadaagayso jamaacatu saadicuuna bilxaq. barnaamijkan oo inoo socon doona habeenada bisha barakaysan ee ramadaan haddii rabbi idmo. caawa waxaa marti inoogu ah doctor cabdulqaadir cabdi waare. barnaamijkan oo mowduuciisu yahay daalikum allahu rabbi waa barnaamij aan diiradda ku saarayno inaan kusoo gudbinno macrifada allah subxaanahu wa tacaala iyo majaalaadka kala duwan ee laga baran karo, gaar ahaan majaalka nolosha. haddaba doctor cabdulqaadir cabdi waare, waxaan rabaa marka hore inaan ku bilowno allah subxaanahu wa tacaala macrifadiisa. majaalaadka laga heli karo way kala duwan yihiin, laakiin sida aan sheegnay majaalka aan rabno inaan xooga saarno oo barnaamijkeenan aan kusoo gudbinno waa majaalkii nolosha. haddaba sideen allah subxaanahu wa tacaala uga baran karnaa nolosheenna? جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. دكتور هذا ما سنتهي وحن ربا سؤال إنتان وقلين معرفة الله سبحانه وتعالى إن وحير كور مريو مهمة إلى هاي إيه مارتي معناه يفرسه الله سبحانه وتعالى. waxa uu kutubta usoo dejiyey, ambiyada usoo diray bini aadamka inay alla subxaanahu watacaala bartaan, kadibna keligiis ay caabudaan. marka qof walba inta uu alla ka yaqaano ayay cibaadadiisu la eg tahay. aqoontaasna ma aha wax adag oo ilaahay subxaanahu watacaala uu fududeeyey, wuxuuna ka dhigay mid laga baran karo majaalaadka kala duwan ee nolosha. alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آيات كلنا وحكوليها وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. مركا قفكم مجال كستا أو نولشا كمذا أولا تعاملا أما أو خبرد أوليها أيو ألا كبران كرا. مركا أنا ما دام أن عافمات كبرتي أو مجال كعافمات كأن كجرو الله سبحانه وتعالى سيدا مجال كاسلوغا بران كرو ayaan rabaa inaan maaragtay sidai anigana ii saameysay dadka kalena aan raba inay u saameyso inaan ka hadlo. alle subxaana watacaala insaanka uu sameeyey, uu dhammaystiray, wuxuuna ka kooban yahay xubno kala duwan iyo sistamyo shaqaynayo oo midba midka kale u dhammaystirayo. waxaan rabaa keliya inaan soo qaato hal system ama hal qeyb oo ka mid ah qeybahaas oo ah difaaca jirka. الله سبحانه وتعالى إنسانك وحو أسميه وحكا دفاع عذرة محوها جراثيمتا صو هجومي سمالين والبو كل حنو لهي تاسو رنتي نعمة إلهي سبحانه وتعالى وإنسانك سيهي ونا أركي كارو مركو أوايا سيدا إنو رشو نقونيسو. دفاع سجيرك مركو وحو قيب سيهي أنا ولي بالربا إنان سي عامة أوغا الله si dhakhaatiirta keliya ay u fahmayaan inaan uga hadlo ma rabo. wuxuu u qaybsan yahay 3 difaac oo kala horeeya oo mid walba markii uu meeshii ilaahay ugu talagalay difaaca uu gaarsiiyo oo la soo gudbo kan ku xiga oo maartay la wareega hawsha qaybtaas markii laga awood badiyana qaybta saddexaad oo u dambayso loo gudbo.
qaybta u horeysa waa ilaahay subxaana wa tacaala insaanka wuxuu siiyey macnaha jirkan ama maqaarka skiinka ayuu siiyey, wuxuu difaacaa wax badan oo macnaha jirka geli lahaa oo ku dhalin lahaa maaragtay cudur. waxaan arkaynaa qofka haddii dhaawac yar skiinka uu ka gaaro isla markiiba meesha infection ay qaadaysaa, sababtaa wuxuu bacteriadii ama viruskii wuxuu helay meel uu ka gala jirkii, maqaarkii baa dilaacay oo furmay meel uu ka galo helay, kadibna macnaha sidaasuu ku keenaya. marka maqaarkaas ayaa ugu horeeya difaaca koowaad. waxaa kaloo arkaysaa bini aadamku wuxuu leeyahay meelo furan oo macnaha caalamka banaanka u furan, sida indhahoo kale, dhegahoo kale, afkoo kale iyo wixii lamid ah. meelahaasna ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu dhigay difaac macnaha ama ha noqdo enzymes oo macnaha markay yimaadaan bacteriadii iyo viruskii dila, ama sida gudahoo kale, calooshoo kale iyo macnaha acid uusan ku noolaan karin. waxaasoo dhan waa difaaca hore oo ilaahi subxaana wa tacaala uu insaanka siiyey. taa haddii ay dhaafaan oo macnaha cadowgii uu ku guuleystay inuu dhaafo oo macnaha gudihii laysla galo, waxaa ilaahi subxaana wa tacaala uu ku diyaariyey muxuu ahaa jeish kale oo isla markiiba maaragtay markay arkaan dhowr tallaab oo isku xiga qaadaya. jeishkaas tallaabta ay qaadayan waxaa ugu horeysa in ay gartaan macnaha cadowgan soo galay cadow xaqiiqiya inuu yahay iyo inuusan ahayn. haddii uusan cadow xaqiiqiya ahayn macnaha waxba tallaab laga qaadi maayo, laakiin markii cadow xaqiiqiya uu noqdo waxay sameynayaan inay horta ciidamadii kale oo ka dambeeyey oo ilaahi subxaana wa tacaala uu jirka ku diyaariyey inay la xiriiraan, gurmad ay ka dalbaan. dhinaca kalena iyaga laftoodu inay macnaha dagaalkii sii galaan oo macnaha difaacii ay sii sameeyaan. waxaa intaasoo dhan kasii cajiibsan, macnaha cadowgan waxaa la rabaa in la ogaado cadow hore jirka u soo galay hadda ka hor inuu yahay iyo mid cusub inuu yahay. marka in laga qaado macnaha sawir oo kale laga qaado, kadibna loo geeyo yacnaha bayska ugu dambeeya oo ciidamada macnaha maaragtay tababaran oo ilaahay subxaana wa tacaala qofka noloshiisa inta ka dhiman oo dhan inay gartaan wixii maaragtay soo maray loogu talagalay ayaa la geenaya. marka la geeyo haddii macnaha memoriga laga fiiriyo oo ay noqoto cudur hadda ka hor soo maray, macnaha way sahlan tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu talagalay inay gartaan, isla markiina hubkii hore loogu diyaariyey lagala hortaga cadowgaas. haddii mid cusub uu yahana in markaa loo sameeyo hub ku habboon oo maaragtay cadowgaa looga hortago. intaasoo dhan marka waxayna tusaysaa uun ka faa'iidaysanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala sida macnaha isu dheeli tiran oo bini aadamkii uu u sameeyey oo macnaha cadowgii looga difaacayo, isagana uuna ugu warqabin, isagoo iska jiifo, isagoo iska shaqaysanayo, isagoo maaragtay iska ciyaarayo ayaa hawshaasoo dhan ay jirkiisa ka socotaa. marka macnaha bini aadamkii waxay ku dhalinaysaa oo ficlan aniga ay ugu dhalisay macnaha allahaas subxaana wa tacaala annagoo iska shaqaysanayno oo maaragtay hawsheenna iska haysano, iska hurdayno, iska in difaacaas kala duwan oo intaasoo marxaladood loo marayo jirkaadii ay ka socoto, qofkiina uuna war u haynin, la rabay inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku garto, uga mahad celiyo, macnaha addoonnimadii loogu talagalay uu maaragtay ku tooso. marka runtii dareenkaas ayaan anigana maaragtay maadooyinkaas markaan daraasaynaya aan ka dareemay, dadkana aan jeclaan lahaa inay ila dareemaan. ficlan waa dareen mudnaantiisa leh allah subxaana wa tacaala iyo jirkan, maadaama dee khalqigan allah subxaana wa tacaala uu abuuray bini aadamka, nicamta uu galay marka waxaa ka mid ah noloshiisii iyo tashiilaadkeedii oo ay kow ka tahay yani manaacadan ama difaacan jirka loo sameeyey. oo hadda sidaas aad ka soo shaqaysay system dhammaystiran oo isxoojinaya oo fariimo isu diraya oo gurmad soo macnaha dalbanaya, yani waxaan isleeyahay waa bini aadamku waxay ugu filan tahay aayad. qof walba oo majaalkan ku jirana yani waxaan isleeyahay waa in badan noloshiisa soo martaa, ama bini aadam jiran ama bini aadam jiradii la dhaafiyo maaragtay manaacadan iyo difaaciisa jirka uguna filan hanuun. haddaba doctore
intaad majaalkan ku jirtay maxaad nooga tusaaleyn kartaayoo si gooni ah saameyn kuugu lahaa? doctore macnaha majaalka hadda aan ka hadlay laftiisa oo difaaca jirka ah ayaan marar badan waxaan arkaynaa difaaca markuu hoos u dhaco oo ilaahay subxaana wa tacaala difaacii ugu talagalay jirka uu hoos u dhaco qofka siday macnaha u weerarayaan macnaha cadowgii jirka uu ka difaaci jiray oo weliba kuwii aan dadka wax ka dhibi jirin oo iska yaraa inay qofkii maar soo ridayaan oo noloshiisa wax badan ka bedelayaan. dhinaca kalena markii uu kor u kaco oo difaaci jirka meeshii ilaahay ugu talagalay uu dhaafane iyadana inay keenayso waxaan hypersensitivity-ga la yiraahdo macnaha allergiga iyo asmada iyo wax la midka inay keenayso. marka tusaale waxaan rabay inaan soo qaato macnaha istaal hadda ka hor aan ka shaqeynayay macnaha qaybta infectious disease-ka ayaa cudurrada faafa qayb ka mid ah waxaa jiifa dadkan HIV-ga qaba. HIV-gana sidaan ognahay waxa waaye macnaha waa immunity-gii hoos u dhacay macnaha weliba qayb ka mid ah kulligiis maaha hal qayb oo yaroo ka mid ah. dadkaas ficlan cudurrada ay u jiifaan macnaha waa cudurro iska aad u yaryar oo qofka saameyn aan ku lahayn markuu caadi yahay. hargabkoo kale ka mid ah. waxaa dhici karta dadka qaar waxaa loo soo jiifiyey in looga baqay macnaha waxyaabahaas yaryarka hargabkoo kale iyo macnaha infectionadan yaryarka inay qaadaan oo halkaas lagu hayo. marka runtii waxaan markaasoo kale dareen ku gelayo ilaahay subxaana wa tacaala nicmada isagaa markii hore ku siiyey haddii wax yaroo ka mida lagaa qaatana macnaha waxa waaye noloshu sidaasay noqonaysaa. bal iska baddaa haddii macnaha immunity oo dhan ama difaacii oo dhan haddii hal mar lagaa qaado qofka damaba noolaan karaba. taas waa midda kalena haddii mar walbaan aragnaa dad asma qaba dad maaragtay hypersensitivity qaba macnaha. dhinaca kale waxaa jira waataan soo sheegnay macnaha difaaca jirka qayb ka mid ah marka hore inay kala saaraan macnaha selkan in jirka uu ka mid yahay iyo inuu cadow dibadda ka yimid yahay. mararka qaar waxaa dhacda khalal inuu dhaco oo jirkii laftiisii uu selis ka mida uu u arkay inuu yahay cadow yimid kadibna weerar uu ku qaado. macnaha cudurradan autoimmuunka la yiraahdo ayaa ka mida oo iyagana aada u badan. marka runtii labada dhinac marka la isu geeyo waxaa kaaga soo baxayso ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa iyo xigmadiisa meel dhexe oo bini aadamkii macnaha difaaciisa uun dhibna u keenayn in macnaha lagu balansigaas ilaahay subxaana wa tacaala uu noo sameeyey. haddii wax yar ay ziyaadaanna inuu dhibkaas ka imaanayo haddii wax yar hoos u dhacaanna dhibkaas inuu ka imaanayo. marka bini aadamka mar walba wuxuu ku jiraa marka cinaayadaas ilaahiga ah oo iska socdo oo cuntada cunayo oo laga yaabo waxyaalo badanoo jeermisiya inay la socdaan laakiin jirkiisa Allah subxaanahu wa tacaala uu ugu diyaariyay nidaam asagoon dareemin inta la dagaalama wixii jira ahaa yani banaanka uga saara oo isaas ku gudbaan asagoon wax xanuun ah aan ka dareemin waana yani awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala. haddaba toore ugu dambeyn maxay tahay risaalada dadka aad la wadaagaysid? toore waxaan jeclaan lahaa inaan dadka la wadaago dabcan nolosha qaybaheeda kala duwan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala laga bartaa. qof walbana majaal ku jiraa. marka in ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka barto uu isku dayo sababtoo ah macnaha qiimaha ay leedahay ilaahay barashadiisana waa soo sheegnay. qof kasta oo bini aadan khalad ku jirana khaladkiisa wuxuu macnaha loo tiirinayaa aqoon darada uu alle leeyahay inta ay macnaha alle u leeyahay inta ay la eg tahay. dhinaca kalena markuu alle barto macnaha inuu ka baqo inuu weyneeyo inuu keligiis caabudo meesha ay ka imaanayso. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa. marka qof walba inuu majaalkiisa uu ka dareemo macnaha cinaayada ilaahay iyo sida ugu naxariisanayo uuna u qasdo intii uu u tiirin lahaa macnaha asbaabo iyo dad waxyaaba ay sii sameeyeen iyo bini aadan maskaxdiisa iyo intuu u tiirin lahaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa dareemo uuna xasuusto macnaha nicmadaas marka la isku daro ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu leeyahay dalikum allahu rabbukum khaaliqu kulli shayin facbuduuh wa huwa calaa kulli shayin wakiil. ficlan waa aayad weyn allah subxaanahu wa tacaala si guud majaalkaagan caafimaadka ah oo bini aadamkii markii laga soo bilaabo qaab samaysankiisa
jirkiisa sidai u shaqeeyaan unug walba waa yani system gooni u taaganoo dhisan oo shaqo gooniya ay ka socoto intaasoo system oo kala duwan ayuu bini aadamka kulansaday si gooni haddaan isu dul taagno systemkan caawa aan ka hadalnay oo ah difaaca jirka iyo waxa Allah subxaanahu wa tacaala xataa daawooyinkan qofka la siinayo oo laleeyahay markuu jiraday daawadaas ha la siiyo waa daawo systemkiisaan kor u qaadaysa oo la shaqaynaysa oo yani bini aadamka uu ku helay aqoontaas Allah subxaanahu wa tacaala uu u fududeeyey oo la baray ileen bini aadamku kuma dhalan inuu waxaan barto inuu tashiilaadkan in cilmigan la helo waa wax kulligeed uu Allah subxaanahu wa tacaala iyo bini aadamkan siduu adduunyadan ugu noolaan lahaa taskhiirkiisa subxaanahu wa tacaala mar walbana marka bini aadamka allahaas nicamtaas u galay iyo ku xirnaanshihiisa weeye waxa laga doonaya hadafka keliya dunida loo keenayna waa allahaas iyo cibaadadiisa waxaasoo nicamo markuu alla bini aadamka u galay wax kale lagama dalbin wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun cibaadadaas maxay tahay waa cibaadadii shacaa'ir tacabudiyada ahayd salaadii soomkii zakadii xajkii iyo isdhiibidii oo u hoggaansankii tala ka qaadashadii manhajka alle iyo dastuurkiisii bini aadamka ugu talagalay inuu qofkan u noqdo dastuur oo allahaas noloshiisa dhan gacanta ku haya xubnihiisa jirkiisa difaaciisa sida uu u shaqaynayo oo xataa markaas uu jirado bini aadamkan iyo daawadan iyo waxaan la isku dayayo waa asbaabe asalka ay tahay waidaa maridtu fahuwa yashfiin aad ayaan kaaga mahad celinaya doctor cabdiqaadir cabdiwaare barnaamijkii caawa aad martida inoogu ahayd daawadayaal barnaamijkeenni caawa halkaas ha inoo joogo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل